dadku naftooda wax kasta ayay la jecel yihiin oo wax walba iyada ugu horeysa dhanka kale bini'aadamka waxaa kamid ah shakhsiyad adduunyada iskaga ilooba nolosha dambe ee aakhiro iyo inay wax wanaagsan u hormarsadaan diintu soodiga aad ayay u dhiirigelisaa waana wax aad u adag in raalkii macmacaanka dunida qof iska iloobo oo aakhiro ka doorbido sheekadan ayna soo gudbin doona waxay ku saabsan tahay nin turki ah oo lacag sanduuq ku ururiyay muddo ku dhisay masaajid lagu magacdaray sankiya dim oo la macnaa kaba soo qaad anigoo cunay ama sida waxaas anigoo cunay khayruddin afendi ama hayruddin afendi oo u dhashay dalka turkiga kuna noolaa degmada faatix ee magaalada istanbul ayaa waxa uu lahaa dhaqan aad u layaab badan markasta ee suuqa aado ee uu arko miro fruit iyo waxyaabo kale ee naftiisa ay u baahan tahay waxa uu weydiin jiray qofka gadaya qiimihiisa marka uu ogaado waxa uu naftiisa ku dhihi jiray kaba soo qaad anigoo cunay mirahaas ama waxa kale ee naftiisa rabootay lacagta uu ku gadan lahaa waxa uu gelin jiray jeebka kale kadibna marka uu xaafadda tago ayuu ku guri jiray sanduuq yar oo xaafadda u yaalay muddo 20 sano ah ayuu lahaa kaba soo qaad anigoo cunay lacagtana waxa uu ku guriyay sanduuq yar ilaa ay gaarto lacag dhisi kartay masjid khayruddin ama hayruddin ayaa ugu dambeyn lacagtii ku maalgeliyay dhismaha masjidka taariikhiga ee sankiya dim ee degmada faatix ee magaalada istanbul masjidkaas waxaa la dhisay sanadkii 1750 oo ah waqtiyadii boqortooyada Cusmaaniyiinta sankiya dim waa taariikh wali wata magacaas kaba soo qaad anigoo cunay khayruddin wuxuu ku rumeeyay riidisa dhismaha masjidka yar si ay ugu noqoto sadaqo aan go'in weligeed oo socota masjidka sankiya dim ayaa ku gubtay dab ka kacay aag oo ku yaalay dagaalkii koowaad ee adduunka waxa uu xirnaa ilaa 1960 dadweynaha ku dhawaa masjidka ayaa mar labaad u istaagay in masjidka la dhiso kadibna albaabada loo furo masjidka ayaa dib loo dhisay iyadoo aan laga tagin magacii sankiya dim ee asalka uu lahaa masjidka sankiya dim halkii mar waxaa ku tukan kartaa 200 oo qof hayruddin afendi waxaa ka adkaanshaha naftiisa uu ku dhisay masjidkaas yar laakiin magaca weyn leh waa go'aan si u qarar haddii nafta loo fiirsho maxaa yeelay in naftaada waxa ay rabto aad uga tanaasasho nolosha dambe waa mid aan cid kasta ka suuragelin oo ku adag iyo heerkii ugu sarreeyay ka adkaansho qof naftiisa uu ka adkaado masjidkii yaraa ee hayruddin afendi dhisay maanta waa ka magac weyn yahay masaafadiisa waana mid ku dayasho mudan in nafta loo xakameeyo si loo gaaro hadaf u muuqda mid aad u yar laakiin ilaahay agtiisa aad u weyn